tilmaam academy. bismillahi raxmaan raxiim. kusoo dhawaada casharkeenii 25aad unit 25 oo aan ugu macdarnay free time at home. qofka markuu firaaqada yahay oo guriga joogo waxyaabaha uu sameeyo activities uu sameeyo maxaa ka mid ah. qofka waxyaaba badan uu sameyn karaa. qofaa wuxuu sameeyaa film u daawadaa, qof buug u akhriyaa, qof waxba ma sameeyo, qofba siwa, qofaa chatting sameeyo, qofaa wax iska dhegeysto, qofba siwa. markaa bal hamar isla fiirina bal tv, radio, music, film dhammaantood bal qof kasta wax uun ayuu sameyn doonaa oo kuwaas ka mid ah. bal aan isla fiirina bal marka hore. A. TV, radio, music, film. I watch TV every evening. Did you watch or see the film about President Kennedy? What programs do you like best on TV and radio? I like watching films on TV. You can also say, I like to watch. At the weekend, we usually watch a DVD. I like listening to music on the radio. You can also say, I like to listen. I often listen to music on my phone when I'm relaxing. I need some new headphones for my phone. alright bal asla fiirina bal tv. qof meeshaan soo dhihi karaa tv aan daawadaa, sidoo u dhihi karaa radio ayaan dhegeystaa, music ayaan dhegeystaa, film ayaan daawadaa iyo waxyaaba lamid oo kale. I watch tv every evening. habeen kasta bacda maqrib oo kale tv ayaan iska daawadaa, dhaqan ii tahay. qof weydii bal did you watch or did you see the film about President Kennedy? ma daawata filimkaas? qof weydii bal did you watch the film about adaysa markaas filimka laga sameeyay President Kennedy ma daawatay? What programs do you like best on TV and radio? TV-ga iyo radio-ga programka ugu jeceshahay programkee waaye? TV-ga ilaa waxaa kasoo gala programyo aad u fara badan, musalsala kasoo gala, ciyaaraha kasoo galo, saadaasha hawada, bakhtiyaa nasiib, everything. marka what programs programkee do you like best ugu jeceshahay on TV and radio? TV-ga iyo radio kee ugu jeceshahay? I like watching films on TV. ani waxaan aad u jecelahay inaan ka daawado filmska TV-ga. You can also say I like to watch. noo dhihi kartaa I like watching, meesha waxaa ku bedeli kartaa I like to watch films on TV. labadaba sax weyn. At the weekend waa maalmaha labada maalin oo dadka shaqooyinka nastaan. anaga jimcadii khamiista oo kale waaye. wadamadaas westernkan waxay u tahay Saturday and Sunday, sabti axad. so qofka muxuu dhihi doonaa marka at the weekend, marka maalmaha oo isbuuc dhammaadkiisa we usually watch a DVD. inta badan waxaan daawanaa DVD. I like listen to music. waxaan jeclahay inaan dhegeysto music on the radio. You can also say I like to listen. oo dhihi kartaa kii hore ayuu la mid yahay. I like to listen. oo dhihi kartaa I often listen to music on my phone when I am relaxing. qofka muxuu leeyahay aniga inta badan ama badana waxaan jeclahay inaan dhegeysto music on my phone. mobilekay inaan music ka dhegeysto ayaan jeclahay when I am relaxing, markii aan nasiino qaadanayo. haddii gabadhan oo kale waxaa laga yaabaa in ay kelid meel fadhiso, headphone ugu jiro, ay kelid sameynayso relaxing. I need some new headphones for my phone. mobilekayga waxaan ugu baahanahay inaan u helo new headphones, dhago cusub ayaan u baahanahay inaan mobilekayga usoo gato. markaa section B, hobbies ayaan fiirin doonaa. hobbies waxaa la waxyaabaha qofka uu jecel yahay inuu qabto. hobby maxaa ku ah? hobbigayga waxaa ah leedahay markaas. bal hamar aan dhegeysana markaas. B. Hobbies. A lot of young people play video games every day. I download music and films from the internet. I chat to my friends online
every evening. I really like cooking. Do you like gardening? We grow flowers and vegetables in our garden. All right. Hobbies. A lot of young people dhalinyarada intooda badan ama dhalinyaro aad u fara badan, a lot of young people dhalinyaro aad u fara badan play video games every day. Ayaa waxay ciyaaraan video games, ayay ciyaaraan maalin walba. PlayStation ayay ciyaaraan, waxay ciyaaraan PUBG ayay ciyaaraan, waxaasoo kale waxaa isku dhahaa video games. I download music and films from the internet. Another one ayaa wuxuu rabaa inuu noo sheego hobbies ayuu rabaa inuu noo sheego. So wuxuu dhihi karaa marka I download music and films from the internet. Waxaan kasoo dejiyaa music and films from the internet. Ayaan kasoo dejiyaa internetka. Sidoo kale waxaan arki doonaa I chat to my friends online every evening. Waxaan la sheekaystaa to my friends. Asxaabtida ayaan si online ah kula sheekaystaa every evening. Feed kasto ayaan kala sheekaystaa online qaab ah. Chatting ayaan la sameeyaa. I really like cooking. Runtii aad ayaan u jecelahay aniga cooking. Hobbigayga waxaa ah cooking aad ayaan u jecelahay. Do you like gardening? Adiga ma ku raaxaystaa gardening? Beerta guriga uu leeyahay geedaha inaad jajartid, geedaha inaad waraabisid, waxaas ma ku raaxaystaa adiga? We grow flowers and vegetables in our garden. Yes, aniga waan ku raaxaystaa. Waxaana markasta beeraa oo abuuraa flowers, ubaxyo ayaan abuuraa, vegetables iyo qudaar ayaan waxaan ku abuuraa in our garden. Okay, section C, reading. Bal markaan asla fiirino ayadana markaan si aan u fahanno marka hore. C. Reading. I read a lot at home. What do you read? I read novels. My sister likes comics. I like books about nature and different countries. I like magazines about music and sport. Do you read a newspaper every day? Alright. Marka qaybtaan wuxuu nooga sheekayn doonaa akhris waay. I read a lot at home. Aniga guriga marka aan joogo wax badan ayaan akhriyaa. What do you read? Maxaa akhrisaa? Maxay akhrisaa? I read novels. Ayuu qofkan dhahayaa. Novels waa long story. Waa sheeko aad u dheer oo laga yaabo buuggaas inuu ka koobnaado 200, 300, 400 page. Soomaalida oo kale manafai oo kale waxyaabo noocaas kale ah. My sister likes comics. Walaashayna waxay jeceshahay inay akhriso comics. Comics azan waa sheekooyin buug laga qoray oo laakiin loo badiyo sawiro. Sawirada ayaa ku badan comics. I like books about nature and different countries. Aniga waxaan jeclahay inaan akhriyo buugta ku saabsan nature. Waxyaabaha nature-ka ah, dabiiciga, dabeecadda caadiga sida badaha, geedaha, shimbiraha, waxyaabahaas oo kale. And different countries iyo buugaagta looga sheekeynayo wadamada iyo waxyaabahaas oo kale. I like magazines about music and sports. Magazines ayaa jiro like journal oo soo baxo isbuucle ama bille ama labada bil mar oo kale. Aan marka wuxuu leeyahay qofka waxaan jeclahay inaan akhriyo magazines about music and sports. Kaasoo laga sheekeeyo badanaa musiga, maxaa soo baxay heestaas iyo ka dambeeya curiyo waxyaabahaas oo kale iyo sportska. Do you read a newspaper every day? Midka maalinlaha soo baxan waxaa loo yaqaanaa newspaper. Do you read a newspaper every day? Maalin walba ma akhrisaa newspaperka? Okay, waxaan kusoo gabagabayn doonaa sectionka section D, expressions. Bal marka hore sidee loo isticmaali doonaa waxyaabahan oo kale? Aan sal dhegeysano marka hore. D. Expressions. We sometimes have friends round. I often have friends to dinner. My best friend comes to stay sometimes. I talk to my friends on the phone every evening. Sometimes I just do nothing. Grandpa likes to have a sleep after lunch.
Okay, asal fiirna marka. We sometimes have friends around. Waxaa laga wadaa we ask them to come to our house. Waxaan asxaabta ka codsanaa marmarka qaar inay xaafadeena isugu yimaadaan sida sawirka ka muuqdo kale. Okay, we sometimes have friends around. Waa isku imaanaa waay. We ask them, waxaan ka codsanaa oon u sheegnaa to come to our flat or to come to our house inay imaadaan. I often have friends to dinner. I often have friends to dinner. Inta badan asxaabteeda ayaan waxaan la qaataa to dinner. Ayaan la soo casheeyaa oo kale. My best friend comes to stay sometimes. My best friend, saaxiibkayga igu fiican, comes to stay sometimes. Marmar ayuu ii imaadaa xaafadeeda ayuuna ila seexdaa. Sleeps in my house ayaa laga wadaa. My friend comes to stay. Comes to stay waxaa laga wadaa uu ila seexdaa marmarka qaar. Okay, I talk to my friends on the phone every evening. Asxaabteeda ayaan la hadlaa, telefoon ayaan kula hadlaa every evening. Hadda wiilkan oo kale waxaa inoo muuqdo inuu telefoon ku hadlaayo. Marka wuxuu noo sheegayaa I talk to my friends on the phone. Asxaabteeda waxaan kula hadlaa telefoonka every evening. Fiid kasto. Inta habeenka uusan seexan qofka 2 saac habeenimo, 1 saac habeenimo, 3 saac waxyaabahaas oo kale. Sometimes I just do nothing. Sometimes marmarka qaar waxba ma sameeyo inaan dhahda rabtaa. Maxaa dhahaysaa marka I just do nothing. Waxba ma sameeyo. Wax buugna ma akhriyo, TV-na ma daawado, heesna ma dhegeysto, waxa ma qabto. Qofkaas muxuu dhihi karaa ma ii sheeg? Sometimes I just do nothing. Grandparent laga wadaa. Awoowe ama waxaas oo kale ama ayeeyo likes to have a sleep after lunch. Waxay u jecel yahay ama ay jeceshahay in qofkaas uu seexdo markii la qadiyo kale. Grandparent laga soo gaabiyey. Grandfather or grandmother camal waay. Grandpa likes to have a sleep. Wuxuu jecel yahay in uu seexdo after lunch markuu qadiyo kadib. Common mistakes. Khaladaadka ka badan ay sameeyaan maxaa ka mid ah? We watch TV. Ma dhihi kartid we see TV lama ogolo. Inkastoo see iyo watch micno ahaan isku mid ay yihiin, haddana isku boos ma la gelin kara marmarka qaar. Marka waxaa dhahaysaa keliya we watch TV. We see TV lama ogolo. And we listen to the radio. We listen to the radio. Ma dhihi kartid we hear. Ma dhihi kartid. Inkastoo hear iyo listen isku mid ay yihiin, haddana markii la joogo meeshan waxaa dhihi kartaa we listen to the radio. Okay, halkaas ayaan kusoo gabagaban doonaa insha Allah unit 25. Sida caadada noo ahaydna waxaa muhiim ah inaad ka shaqeysaan exercise-ka uu wato buuggan. Waxaan soo ognaa insha Allah chapterka xiga insha Allah.